السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه لهانتين باخيارتا ودانا قال سعودتاي رمضان كريم مالكستو دافع عالم كجوجتان kusoo dhawaada sheeka halgameedeen la magac baxday hadereemin geerida qaybteedii afraad hadduu ay baweyn ogolaado waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Maryam Maxamed Khaliif halkaad igala socotaana waa ogaadeen news agents waxayna ku bilaabmaysaa sida tan haad ma haysto oo ma cabiri karno meel ay xabadanadu marayso markan hiilka ma sugayno wiilashii qarrida saarnaa jeclaan lahayna inay xabada naga joojiyaan aanan iskaga baxno waase lama suuriyaan iyo si aanan dhacayn bamka ma iska gooyaa hayaan idhi markaasay sidii aniga oo tuuray saaxiibada igula soo boodeen warawowga la gubiyay hanagu xasuusin haye ayaan degdeg u celiyay aniga oo garwaaqsaday inay iyagu iga saxan yihiin oo ay naftowni la kacday talow miyaan qajilay mise xeerka qajirkuba jeerahan oo kale ma shaqeeyo adba meele habnugeylku ma fiicnee meelay tabarina dhigtaba waan ogeylamayna intii tabartaana ah habeenkana caawiyey ayaa maankayga ku soo riday aayadii qur-aanka ahayd wajacalna leela libaasa habeenka ayaan hu idinka dhignay markaas ayaan eebbow mahad celiyey waxaan mar kale hoos isku idhi oo dhirta miyaad ilowday gaashaanka ku ahayd eebbow mahadaadu badan ayaan ku celiyey mar kale bal suurayso haddii ay dharaar ahaan lahayd goobtaanu ku dagaalamayno oo gegi bannaan ah sidee ayuu xaalkanagu ahaan lahaa halkaas marka ay marayso ayaanu qoryihii xidhanay daqiiqada kadib iyaguna waa ay naga joojiyeen xabadii talo kale ma taallo waa inaan isticmaalo xeeladihii tan oo kale lagada gudbi jiray iyo sida aanu uga bixi lahayn goob hoogan sawaxankanaga iyo shanqadhanaga waxay maqleen mooyaane mar kale hayay sidii roobka noogu hoobatay xabadii nafti hureylka case hayayna soo lagaday waxaana maqlay warigaga rida aan wiilka bixiye waxaana ii xigay cod daciif ah oo ka soo baxaya saaxiibkay uunooyaanan idin galaafanine anigu waan dheelmaday laba ayaanu wiilkii ku qaadnay haddana dib xidh ayuu nooga hadhay oo annaga ayuu nagaga ridayaa faraqan saas u sii weynayn ayaanu ku soo dhaadhacnay annagoo tunka ku wadana wiilkanagii isaga oo marna shahaadanaya marna ku cataabaya uunooy dhiga oo idinku baxa dhulka sidaada aan u dhignay ayuu cadde oon waxba naga dambaynin balse uuba jaban yahayba oo gacanta midig ayay kaga taallaa cadde oo ay gacantii jabnayd garab taallo halka agtaannada ah ayuu caagad shaqlan barin yahay waan roonahay ayuu weydiintaannada kaga jawaabaya waanse dareemi karaa xaalka uu ku sugan yahay iyo inuu adkaysanayo saaxiibkii oo ka daranna agtiisa ayuu yaalaa kasakow jiljileeca iyo isbihinbihintu dhaqanka Soomaaliyeed iyo anshaxa ciidanka naftoodurayaasha deelqaaf iyo ceebsoo kuma aha cadde gacanta ayaan macawiistii intaan kaga duuduubay diisiina 2 jeer isku laabay ayaan gacantii u dhaxdhigay ayaan qoorta u suday nafti hureelkaasi xaaladiisu waa isbedeshay oo waa ay kasii dartay inta uu qufacay oo dhiig afkiisa ka yimaaday ayuuna miyir daboolsamay haddana cabaar kadib waa uu soo miyirsaday qiyaastii waxaanan ka badnayn 20 daqiiqo ayuu xaal aan la saadaalin karin ku sugnaa nafti huruhu intuu indhaha si toos ah u kala qaaday ayuu isoo fiiriyey haddana samada dhowray midig iyo bidix ayuu kolba dhinacu daymooday mar kale isaga oo dhoolla cadaynaya ayuu daymo naxariis leh ila soo noqday waa uuna haamhaamsaday cod hoose ayuuna ku ashahaatay marba marka kasii dambaysa wax walba oo shanqadha waa ay kasii naaqusaysay sawaxankeedu annaga iyo muuqaaladii kale ee u muuqday waanu kasii libdhaynaa ugu dambayn wixii uu maqlayay way isla aamuseen shibayayna isla yidhaahdeen xidigihii ayaa ka qarsoomay isaga oo dhaayihiisa dhinacna u leexin dareenkii tabashada ahaa ee kolba meelaan gacanta ka saarayay xanuunkii iyo dhaawacii hal mar ayay ka suuleen mar qudha ayay indhahayga dabooleen dhibcaa biyo ah oo aan waxbaba la arki waayey waxaan u jeedaa ilinaan xajisan waayey oo koodashaydii dhaadheeraa soo leexiyeen ayaa sanka labadiisa dhinac iyadii oo kulul hoos u garab qaaday dabadeedna gadhkayga buuxdhaafiyey dhab ahaan qalbiga ayaan ka xanuunsaday innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun hadda waxaan sugaynaa nafti hure cabdikaafi oo ku maqnaa geedihii wasaasinta ahaa waxaanse qalbiga iska leeyahay allayaa u sheega inaanan loo baahnayn wasaasin oo iska soo noqa yidhaahda daqiiqado ayaan halkii ku sugnay aniga oo maanka ku haya isagii oo laamo dhaadheer degta ku sida aniga iyo cadde oo hoos u xamxamlaynayna ayuu cabdikaafi nagu soo duldhacay ama na soo hor istaagay assalaamuduu yidhi ayuu hadalkii ku go'ay geedihii uu degta ku sidayna dhulka ayuu ku sii daayey ma cabiri karo dareenka argagaxa leh ee wiilka foolkiisa ku taagay
taagnaa, balse haddii aan malaysto waxaan odhan karaa Cabdikaafi waxa uu la doorsoomay. Indhihiisa mar qudhahay qabteen aniga oo cadde garabkiisa dhabcaday muuqaalka maradu ku dadan tahay ee hortanada ka muuqda. Ugu dambayn sidaanu u naallo isku soo wada duuduubo sawraacan aynu naftiisu mahadinin ee hor yaalla ayay u ekaatay keliya inaannu isaga un sugayno. Giraanta nolosha intaannu ku dhex jirno dhacdooyinka waayaha ku lifaaqan ayaynu marna la murugoonnaa, marka kalenayna farxad geliya. Sida dabeecaddeeda aannu uga barannay ma jiraan meel kulmisa farxadda iyo murugada maadaama ay lid isku yihiin. Xigmad carabiya ayaa odhan jirtay didaani laa yajtamicaan, oo laqmaha afkeenna ku ah laba lid isku ahi ma kulmaan. waxaana iyadana been ahayn nafti hura saaxiibkii ka shahiiday in dareenka murugada iyo farxadduba ku kulmaan isla xaaladaas. haddaba taasi aad igu raacdide aan daliilka kuu suureeyo oo waa sidee. tan hore geerida saaxiibka ah waad ku murugoon, dhanka kalena waad ku farxi waddada uu naftiisa qaaliga ah uu ku waayey oo ay natiijadeedu tahay janno. haddaad igula qanacday hadda diiwaanka ku xariiqo. haddaba cadda wixii culays ahaa intii aannu ka fudaydinay ayuu Cabdikaafi garabka bidix qabtay, tartiibna uu wadaa. gadaal ayaan aniguna ka socdaa, guure ayaannu dhowr foof adhi ku goynay. waagu markii uu dilaacay ayaannu xidh reer dushiisa degnay. horaa loo yidhi dad baa ku qariye dhulkuma qariyo. bal maxaa xigi doona dhegaystayaal, la soco qaybta xigta hadduu eebbo ogolaado.